هيو شيخ حسن نور أفرتن يشنجر أيو كيمد محوها كي النوالد أسوق قصوا عن ببحي حرونتي سوينيد علمي وكفي جري علوم أي فردي قلافو أيو قصوا عن ببحي كديم مركو إذا كسو قاتي أبيس أو أسقنا شيخي أساسي طريقة داس حرونتاس وين علميات طبعا وجود بي أما تجي ماشي اللي لهذا محوها بارديره كان أساسي القرن السادس برتميهسي كأساسي طريقة دي لما قام بحذي عن كاي اللي لهذا طريقة بارديره شيخ عثمان بارديره تذكرون أبي وذي قانان كتبت الدينية محوها لغة قري علماء الصومالية دي فافيد الدين كله وخذ قرنتاي هلكا وحو تجينا حسن شيخ حسن نور أبيهس وحو تجي هالكاس شيخ عثمان بارديره كما ديرا وحو تجي إنه كهرتو برتغيسكا oo xiriir la soo sameeyay saltanadii baardheer markaa jirtay oo kaga bedeshay 20 qori oo mosquito oo waa adduunku dadku aanay hore u aqoonin si ma garanaysa dagaalkii halka taariikhda galay la dhihi jiray aji iyo ajuuraan ay muxuu ahaa saltanadu ay iyadu gacanta sare u yeelato dabadeedna uga bedesheen inay 3 nin oo cadaan ah ay keeneen waab kaniisada ay uga dhiseen halkaasna waxa ay noqotay عادة علماء الدين تا إني كهر تجان وأنا قيبت كلية ودن كوني الدفاع جرتي قرنية ده هو صار ضعفني كلمة حق أن كنت دفاع جري الشيخ عثمان الشيخ أبو برة هالكاس أيو محوها أيو صلدكتي ويلكي سعرت كهانا وحا وكوري جي حرنتي وينيد أصل كهيد محوها قبل قلافو هالكاس kadib markuu idanka helay ayuu 1925 asagoo 45 jira ayuu nugaal yimid waxa la socday oo kala soo ama baxay qalaafo 8 nin oo walaalihiisa oo culimo waaweyn iyaguna waxay ku hareen maadaama dhulku uu ahaa dhul aan aad loo wada aqoonin waxay ku hareen muxuu ahaa doolo iyo carro ciideed iyo hawd bay ku hareen asaga ayaa sheekhu halka tagay waxa uu ka dhul bilaabay marka uu ka dalgalay meesha la yiraahdo Laasajano taariikhda dadka aan aqoonin baan rabaa inay muxuu si fiican u bartaan Laasajano marka uu tagay waxay dooxo ama tog xooluhu ay ka cabahayaan oo biyo badan geel fara badan uu marka uu cabahayo durduuranayay korayna ay la joogtay sheekhu dalka ma aqoonin marka uu yimidna waxa uu weydiiyay dhalinyaradii kuraydii meesha magaceeda waxay ku yiraahdeen Laasajana la yiraahdaa wuxuu yiri maandooyo jannadu sidan ma ahane waxaanu caanad haystaan Laasacaan u bixiya horta magaalada Laasacaan la yiraahdo 1825 ayaa Sheekh Xasan Nuur waliyullah al-mukarram ayuu u bixiyay magaca la yiraahdo Laasacaanood halkaas ayuu saldhig ka samaystay meesha la yiraahdo yaahel ayaa meesha bulaashay ummadu diinka ka habqatay ka dharagtay ahayd ilaa iyo ummadii ay ka gaadhay darajada ugu sareysa oo diinta waxa la yiraahdaa jihaadku wuxuu ku yaalaa meesha uu geela kurs kaga yaalo ayay diinta jihaadku kaga yaalaa halkaas wixii la soo maray taariikh ahayd iyo wixii jihaadaha iyo wixii shuhadaaha iyo guushi iyo gobonimada la gaaray dawladii daraawiish lagu dhisay Soomaali gees ka gees ilaa koonfur ay daraawish gaadhay daraawish webi daraawish koonfureed oo ilaa iyo marka iyo gobolka hadda shabeellaha hoose la yiraahdo ku ekayd ilaa iyo bari ilaa iyo sanaag ilaa iyo muxuu ahaa badda carbeed gaadhay ayaa muxuu ahaa yaa ka dhalatay jihayntii diimeed Sheekh Xasan Nuur ama risaaladii maxamediyada ahayd Sheekh Xasan Nuur oo dhulka soo gaarsiiyay Xasan Nuur waxa weeyaan waa magac magaranaysa ilaahay waafajiyay waa Xasan Nuur nuurkii wanaagsanaa weeyaan ilaahayna nuur wanaagsan buu ka dhigay ma ahayn hadaba in magaranaysa qof ama aqoon aan u lahayn ama muxuu ahaa hatta hadduu ka cula jeedo taasi waxa weeyaan mid isaga aakhiradiisa iyo adduunkii aakhiradiisa magaranaysa u daran adduunkiisana
ومد مقنيسة أمد الصوماليات iyo ummadda islaamka oo dhan ay la yaabayso ama ay muxuu ahaa ka xumaanayso hadallada xunxun oo kale oo sheekada iska ah sheeka baraleyda ah alf leela ama sheekad muxuu ahaa been hawaas oo kale wax saas oo kale taa ama sheeka caruureed aan dhaho sheeka xariireed waxyaabahaas kale ma wanaagsana xaqiiqatan waxaan marka leeyahay arrintaas waa arrin dhacday waxaan isla welinahay bishan iyo bishii ka horreysay oo dhan dadku way yaabanaayeen madax badan baan la xiriiray waan isku daynaa garaadka la xiriiro oon si hoose oo bal u weydiiyo isaga oo garaadku xurmo iyo sharaf ba naga mudan runtii waxaan isku dayay inaan muxuu ahaa bal aan hoos u wareysto odayaasha kale iyo guurtida kale oo dhan waan isku dayay waa ii suuroobi weyday runtii dad fara badan oo asxaaba oo aanu daraawiish isla nahay oo aanu isku mabda iyo isku muxuu ahaa jiha u soconno oo isku jihaad ku wada jirno way yaabeen laftooda aad bay oola yaabeen waxa ay ku sifeeyaan bay garan waayeen arrinta iyada ah sida ay ku dhacday waxaan haddaba leeyahay waxaan ka rajaynaynaa muxuu ahaa garaadka isagoo aad iyo aad muxuu ahaa u sharfan oo annagu aanan muxuu ahaa aanan maqaamkiisa hoos u dhigaynin waxaan ka sugaynaa in uu ka bixiyo raaligelin maqal iyo muuqaal ah arrintaas iyada ah ma aha mid maqaamkiisa ah mid maaragtay u qalanta ma aha muxuu ahaa mansabkiisa iyo hoggaankiisa waqtiga la joogo iyo halganka lagu jirana ma aha mid maaragtay u qalanta ma aha annagana nooma qalanta inaan muxuu ahaa aan idhaahno muxuu ahaa aan ka caawano ama muxuu ahaa aan idhaahno waxaan maxay u dhacday waxaan wax kasta si kastay ku dhici karayaan waan isku daynay in bal in hadalka la bedelay in wax la dul saaray haddii intaa wuu maqlay kolley garaadku wuu ka jawaabi lahaa wuu dhihi lahaa war waxaasi waa wax ama lagu masabidahay